wax allaala iyo wax gacanta ciidanka ku jira ciidanku awoodi kariyo ciidanku kari kariyo waa la idinla garab taagan yahay way idinla garab taagan yihiin wayna idinku taakulay doonaan ciidanka Ilaahay waxa nagala rabaa garasho dib waxa mahad oo dhan u sugnaatay Allah subhanahu wa ta'ala oo saacadan inoo suurta galiyana halkaan isugu nimaado sidoo kale waxa aydana mahad u sugnaatay dhammaan ciidamada qaranka shacbiga Soomaaliyeed iyo ciidamada dib u xureynta deegaanka oo caawa ayaga awgood aan halkaan u nimid waxaan isleeyahay runtii way fiicneeday waqti ka munaasabsan waqtigan oo wajiyadeeno dhan is arki karaan inaan nimaado laakiin nooma suurta galin ayadana waqti kale dib isugu soo laaban doona ma noqon doonto ciidanka Ilaahay waqtiga ugu dambeeyay oo halkaan ku wada kulanno waqtigan meel kale iyo waqtiyo kale ayaan wada kulmi doonaa hadii Ilaahay ogolaado aad iyo aad ayaan runtii ugu faraxsanahay inaan caawa halkaan idinku nimaado idinku yimaadin mas'uuliyiintii dawladda oo qaybaha kala duwan ee dawladda ku jirtay waxaan isleeyahay dabcan waa dareemi kartaan ahmiyadda iyo muhiimadda aad leedihiin waqtigan inaan idin nimaado oo halkaan idinku nimaado waxaan Allah subhanahu wa ta'ala ka baryaynaa guud ahaan in allaala iyo intii dagaalkii lagula jiro nimanka mujrimiinta ah ku shahiiday inta ku dhaawacantana waxaan leenahay Allah subhanahu wa ta'ala ha caafiyo wax ka wanaagsan qofka bini'aadmiga oo uga wanaagsan xurriyadda iyo amniga inay jirto uma malaynayo naf kasta ee bini'aadmiga waxa ugu horeeya ee inay hesho ay muhiim ka tahay waa amni inta ka dambaysa kadib aad ka fikiri kartaa cunno kadib aad ka fikiri kartaa caafimaad kadib aad ka fikiri kartaa nolol kale iyo horumar kale kadib aad ka fikiri kartaa laakiin amni hadaadan haysan oo xurriyad aadan dareemayn waxaad ka fikiri kartaa haba yaraatee male amba beer joog amba ari la joog amba geel la joog amba magaalada joog amba baabuur wad waxa ugu horeeya ee inaad hesho aad u baahan tahay ee naf kasta bini'aadmiga u baahan tahay waa amni waxaan runtii rabaa inaan idinkaga mahad celiyo inaad garataan amniga laga sheekaynayo inuu ku jiro gacantiin iyo gacanta ciidamada qaranka waxaan idinkaga mahad celinayaa inaad garataan inaad garab istaagtiin ciidamadiina qaranka si aad isaga dul qaadaan nimanka arxan laawayaasha muhiimadda ugu weyn marka waxay tahay meeshaan waa ka kicinay ayadoo la iskaashanayo ayadoo wada jir la yahay ayadoo ciidamadii qaranka qaybaha hore kala duunaay gobornatorihii gobolka iyo saraakiishii qaranka taliyihii ciidanka dhulka guud ahaan taliyaashii qaybaha iyo heerarkii kala duunaay talisyada ciidamadu ayagoo iskaashanay iyo adinka iyo dadka shacabka ah oo runtii u adkaysa waaya damiir laawayaashaas ayaa laga kiciyay waxaan rabnaa marka laba arrimood ba inaan ka fikirno waa marka koobaad horta deegaankii laga kiciyay si mushkiladahoodii iyo arxan la'aantoodii aysan ugu soo laaban horta inaan ka fikirno waa laga maarmaan oo iska celino oo mar dambe aanan kaanan u ogolaan gurigeenna in nin la miduhu iyo nagala baxyo banaanka naga jiifiyo oo asugu jiifto horta inaan kaanan u ogolaan waa marka koobaad marka xigtana midda inaan ka fikirno u baahan waxay tahay cariirigii iyo ciqaabtii uu ku haayay hooyada Soomaaliyeed iyo aabaha Soomaaliyeed iyo wiilka Soomaaliyeed ee gabadha Soomaaliyeed ee deegaanka aan hadda ku sugannahay iyo deegaanada ku xeeran ku nool ayuu wali ku haayaa hooyo kale iyo aaba kale Soomaaliyeed inuu si dul saarnaado hadaa ogolaana ka warrama guriga kugu dhagan haduu holco waxa aad sugayso gurigaaguna inuu holco Sooma mushkiladda marka hooyada Soomaaliyeed iyo aabaha Soomaaliyeed ay ku haayaan haddaanan kaanan iyo iskaashanna hadda aanan kaanan uga daba tagin waxa qasab noqonaysa inuu hooyada iyo aabaha halkan joogana uu dib ugu soo laabto Sooma waxa la rabaa marka deegaankan waa deegaankaad ku dhalateen waa deegaan Soomaaliyeed waa deegaankaad u dhalateen waa deegaanka cimrigeena inta aan jirno aan ku noolaadoon iyo dhammaan deegaanada Soomaaliyeed waxa la rabaa marka inaan ugu noolaadno xurriyad inaan ugu noolaadno si amniya taasina waxay u baahan tahay in la iska kaashado waxay u baahan tahay in gacmaha la isqabsado ninka waqooyi ka jira iyo kan galbeedka ka jira iyo kan bari ka jira iyo kan koonfur ka jira waxay u baahan tahay in gacmaha la isgashado si saaxiibtinimo ah Soomaalinimo ah damiir iyo dadnimo ay ku jirto la isu kaashado midka kale ee ay dul saaran yihiin iyo looga daba tago laga dul qaado idanka Ilaahay si hooyooyinka Soomaaliyeed abniga caawa hooyada bacda joogta ay dareemayso si kuwaasuna ay u dareemaan ciidamada qaranka waxa iga dambay doona dabcan mas'uuliyiinta kala duwan ee meesha socota oo qaybaha kala duwan ee dawladda ka socota oo wasiir gaashaandhigu ugu horeeyo laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego abnigu cid gaar uga shaqay karta ma jirto ciidamada qaranku
haddii aadan adigu hor socona daba socona dhinac socona lana garab taagnayna wax allaala iyo waxa awood aad leedihiin iyo waxa xog aad haysaan awoodooda wax micnaa ma samaynayso waxaan rabaa marka idanka ilaahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan qaranka wuxuu taagan yahay garabkiina gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo hay'adaha amniga kale wax allaala iyo waxa ay kari karaan waxay la mid yihiin qoragan hadda aad gacanta ku haysataan meel idinka ma jiraan wax allaala iyo waxa gacanta ciidanka ku jira ciidanku awoodi kariyo ciidanku kari kariyo waa la idinla garab taagan yahay way idinla garab taagan yihiin wayna idinku taakulay doonaan idanka ilaahay waxa naga la rabaa garasho waxa naga la rabaa saaxiibtinimo iyo isku duubni waxaan filayaa deegaanada mararka qaar koor waxa laga yaabaa dadka ehelka ah ee walaalka ah ee Soomaalida ah ee isdegan ee wada deganu mararka qaar koor in isku dhacyo ka yimaadin nin walaalka ah gurigaaga aan qaadanayn baabuurkaaga jidka mara aan waxba ka rabin arigaaga moorada ku jira aan waxba ka rabin geelaaga aan ka qaadanayn xabad inaad iyo qaadato addisho mararka qaar koor ay dhacda Soomaa taas waxa la rabaa hadda kadib inaysan soo laaban yaa mudan waxa mudan naftaada iyo maalkaaga midka u soo jeestay inuu si baadil ku qaato kaas ayay waajib muqaddas tahay in xabada lagu rido laakiin ninka Soomaaliga ah ee walaalkaaga ee kula jooga kale dhinacu doonyaha ka xigiyo waa nidaam darro waa sharci darro waa qaab darro in la dagaalamo taas waxaan rabnaa in la ilaaliyo xabadeena waxaan u baahanahay hal dhinac inay u jeesato oo ah nimanka sharwadayaasha ah oo dhiiga ummadda Soomaaliyeed iyo dheefta ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan baneestay ciidamada qaranku way idin horkici doonaan adinkana waxa la idinka rabaa inaad daba kacdaan hadii Ilaahay ogolaado aad iyo aad u mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh